Daawadayaal soo dhawaado markan waxaan idiin haynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore. Alfanaan Idile oo ka badbaaday isku day dil, xagoo kaga badbaaday intaas iyo in ka badan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal. Balse marka hore waxaan iiga codsanaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdaan, siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku uu u gaaro saaxiibo badan. Fanaanka caanka ah ee Idile kana soo caanbaxa dhankaasi iyo Nairobi ayaa waxa uu ka badbaaday isku day dil xilli la qorsheeyay in hawada lagu cuno fanaanka. Idile oo sheekeeyay ayaa waxa uu sheegay in si dirqi ah oo kaga badbaaday kooxo dable ah oo doonayay in fanaanka Nairobi ay ku dhex qaarijiyaan. Inta badan Nairobi dadka degan ayaa waxa ay si aad ah ay ugu cabsadaan Axmed Rashiid, kaas oo Nairobi xoog ku haysta dadku inta badanna ay si aad ah ay kaga baqaan, gaar ahaan fanaaniinta. Idile oo si la yaab leh u soo muuqday ayaa waxa uu ka sheekeeyay dhacdada dilka oo ka badbaaday iyo sidoo kale cidda uu ku tuhmayo. Idile ayaa yiri, mar aan doonayay inaan show ku soo dhigo mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, ayaa waxa ay soo daba kacay ilaa ku dhawaad 4 ruux oo la shaqeysay Axmed Rashiidka Nairobi, sida weyn fanaaniinta ee kaga baqaan. Marka hore waxaan islahaa waxay jooji doonaan showgaaga, laakiin intaas kaliya ayaan daneynayay, waxaana ka dhursugayo waxa ay sameyn doonaan. Ha yeeshee ficilkii ayaa isku bedelay mid anigu aan ka badbaado dil qorsheysan. Labada ruux ayaa ku hubeysnaa baangado iyo sidoo kale torrey, sidoo Idile hadalka u dhigay, waxaana la doonayay in qudha la ii xiiro. Hase yeeshee waa ka badbaaday ayuu yiri fanaankan. Waxa uu sheegay inuusan garanaynin waxa Axmed Rashiid oo ilaa iyo hadda ku haysto. Axmed Rashiid 3 jeer ayaan wargeliyay, waxaan u sheegay in aan show ku qabanayo magaalada Nairobi, waayo ogyahay in Nairobi si weyn lagaaga yaqaano, laakiin waxay dhalinyaradiisii ugu maageen ma garanayo. Dilka markaan ka badbaaday waxaan la xiriiray Axmed Rashiid, waxa uu ii sheegay in waxyaabahaasi oo waxba kala socon. Arrinta ayaa waxaa lagu eedeeyay dhalinyaro lagu naanayso super power oo ka howlgala magaalada Nairobi, kuwaas oo caan ka ah in dadku si weyn ay u waxyeeleeyaan. Inta badan dadka Nairobi ku nool ayaa cabsi joogto ah ka qaba Axmed Rashiid, kaasi oo ka taliya magaaladaasi. Dhalinyaradu waxa ay ku qasban yihiin markay Nairobi ay tagaan, gaar ahaan kuwa fanaaniinta ah, in ay iskala hadlaan Axmed Rashiid amba ay laaluushaan. Haddii taasi ay dhici weyso, waxaa suurtagal ah in lagu waxyeeleeyo. Fanaankan Idile ayaa dhowaan BBC-da waxa ay qortay warbixin ay sheegtay fanaankii inuu markiisii hore ka soo bilaabay darbi jiif, kaas oo si weyn ugu carooday arrintaasi. Idile ayaa waxa uu sheegay in uusan ka heri doonin dhalinyaradan oo dilkooda uu ka badbaaday, sidoo hadalka u dhigay. Axmed Rashiid ayuuna si kulul u eedeeyay, inkastoo arrintu Axmed Rashiid uu iska fogeeyay. Dadka Nairobi ku nool ayaana cabsi joogto ah daawadayaal ninkaasi ka qaba, iyadoo dowladda iyo sidoo kale booliiska Nairobi ay waxba ka qaban waayeen arrinkiisa, waxaana loo adeegsadaa inta badan. Soomaalida way u rigaysan yihiin, waxa uuna ku hayaa qataata iyo sidoo kale arrimo la yaab leh. Fanaaniin ka horreysay Idile ayaana si joogto ah uga caban jiray Axmed Rashiid. Waad ku maasan tahay daawashadaada haddii aad nala joogtay min bilow ilaa dhammaad, ee ha ilaawin inaad followna dhahdo. Daawadayaal soo dhawaado markan waxaan idiin haynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore. Alfanaan Idile oo ka badbaaday isku day dil, xagoo kaga badbaaday intaas iyo in ka badan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal. Balse marka hore waxaan iiga codsanaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdaan, siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku uu u gaaro saaxiibo badan. Fanaanka caanka ah ee Idile kana soo caanbaxa dhankaasi iyo Nairobi ayaa waxa uu ka badbaaday isku day dil xilli la qorsheeyay in hawada lagu cuno fanaanka. Idile oo sheekeeyay ayaa waxa uu sheegay in si dirqi ah oo kaga badbaaday kooxo dable ah oo doonayay in fanaanka Nairobi ay ku dhex qaarijiyaan. Inta badan Nairobi dadka degan ayaa waxa ay si aad ah ay ugu cabsadaan Axmed Rashiid, kaas oo Nairobi xoog ku haysta dadku inta badanna ay si aad ah ay kaga baqaan, gaar ahaan fanaaniinta.
iile oo si la yaab leh u soo muuqday ayaa waxa uu ka sheekeeyey dhacdada dilka uu ka badbaaday iyo sidoo kale cidda uu ku tuhmayo. Iile ayaa yidhi mar aan doonayay inaan show ku soo dhigo mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxa ay soo daba kacay ilaa ku dhawaad 4 ruux oo la shaqeeya Axmed Rashiidka Nairobi sida weyn fanaaniinta ee kaga baqaan. Marka hore waxaan islahaa waxay jooji doonaan showgaaga, laakiin intaas kaliya ayaan daneynayay, waxaana ka dhursugayo waxa ay sameyn doonaan. Ha yeeshee ficilkii ayaa isku bedelay mid anigu aan ka badbaado dil qorsheysan. Labada ruux ayaa ku hubeysnaa baangado iyo sidoo kale torrey sidoo Iile hadalka u dhigay, waxaana la doonayay in qudha la ii xiiro, hase yeeshee waa ka badbaaday ayuu yidhi fanaankan. Waxa uu sheegay inuusan garanaynin waxa Axmed Rashiid oo ilaa hadda ku haysto. Axmed Rashiid 3 jeer ayaan wargeliyay, waxaan u sheegay in aan show ku qabanayo magaalada Nairobi, waayo ogyahay in Nairobi si weyn lagaga yaqaano, laakiin waxay dhalinyaradiisii ugu maagay ma garanayo. Dilka markaan ka badbaaday waxaan la xiriiray Axmed Rashiid, waxa uu ii sheegay in waxyaabahaasi oo waxba kala socon. Arrinta ayaa waxaa lagu eedeeyay dhalinyaro lagu naanayso super power oo ka howlgala magaalada Nairobi, kuwaas oo caan ka ah in dadku si weyn ay u waxyeelayaan. Inta badan dadka Nairobi ku nool ayaa cabsi joogto ah ka qaba Axmed Rashiid, kaasi oo ka taliya magaaladaasi. Dhalinyaradu waxa ay ku qasban yihiin markay Nairobi tagaan, gaar ahaan kuwa fanaaniinta ah, in ay iskala hadlaan Axmed Rashiid amba ay laaluushaan. Haddii taasi ay dhici weyso, waxaa suurtagal ah in lagu waxyeeleeyo. Fanaankan Iile ayaa dhawaan BBC-da waxa ay qortay warbixin ay sheegtay fanaankii inuu markiisa hore ka soo bilaabay darbi jiif, kaas oo si weyn ugu carooday arrintaasi. Iile ayaa waxa uu sheegay in uusan ka heri doonin dhalinyaradan oo dilkooda uu ka badbaaday sidoo hadalka u dhigay. Axmed Rashiid ayuuna si kulul u eedeeyay, inkastoo arrintu Axmed Rashiid uu iska fogeeyay. Dadka Nairobi ku nool ayaana cabsi joogto ah daawadayaal ninkaasi ka qaba, iyadoo dowladda iyo sidoo kale booliiska Nairobi ay waxba ka qaba waayeen arrinkiisa, waxaana loo adeegsadaa inta badan. Soomaalida way u rigaysan yihiin, waxa uuna ku hayaa qataata iyo sidoo kale arrimo la yaab leh. Fanaaniin ka horreysay Iile Yare ayaana si joogto ah uga caban jiray Axmed Rashiid. waad ku maasan tahay daawashadaada haddii aad nala joogtay min bilow ilaa dhammaad ee ha ilaawin inaad falowna dhacdo. daawadayaal soo dhawaado, markan waxaan idiin haynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore. Alfanaan Iile oo ka badbaaday isku day dil, xagoo kaga badbaaday intaas iyo in ka badan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal. Balse marka hore waxaan iiga codsanaynaa in muuqaalkan aad falow dhahdaan, siina sheer garaysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku uu u gaaro saaxiibo badan. Fanaanka caanka ah ee Iile kana soo caanbaxay dhankaasi iyo Nairobi ayaa waxa uu ka badbaaday isku day dil xilli la qorsheeyay in hawada lagu cuno fanaanka. Iile Yare oo sheekeeyay ayaa waxa uu sheegay in si dirqi ah oo kaga badbaaday kooxo dable ah oo doonayay in fanaanka Nairobi ay ku dhex qaarijiyaan. Inta badan Nairobi dadka degan ayaa waxa ay si aad ah ay ugu cabsadaan Axmed Rashiid, kaas oo Nairobi xoog ku haysta. dadku inta badanna ay si aad ah ay kaga baqaan, gaar ahaan fanaaniinta. Iile oo si la yaab leh u soo muuqday ayaa waxa uu ka sheekeeyey dhacdada dilka uu ka badbaaday iyo sidoo kale cidda uu ku tuhmayo. Iile ayaa yidhi mar aan doonayay inaan show ku soo dhigo mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxa ay soo daba kacay ilaa ku dhawaad 4 ruux oo la shaqeeya Axmed Rashiidka Nairobi sida weyn fanaaniinta ee kaga baqaan. Marka hore waxaan islahaa waxay jooji doonaan showgaaga, laakiin intaas kaliya ayaan daneynayay, waxaana ka dhursugayo waxa ay sameyn doonaan. Ha yeeshee ficilkii ayaa isku bedelay mid anigu aan ka badbaado dil qorsheysan. Labada ruux ayaa ku hubeysnaa baangado iyo sidoo kale torrey sidoo Iile hadalka u dhigay, waxaana la doonayay in qudha la ii xiiro, hase yeeshee waa ka badbaaday ayuu yidhi fanaankan. Waxa uu sheegay inuusan garanaynin waxa Axmed Rashiid oo ilaa hadda ku haysto. Axmed Rashiid 3 jeer ayaan wargeliyay,
waxaan u sheegay in aan show ku qabanayo magaalada Nairobi waayo ogyahay inaan Nairobi si weyn ligaaga yaqaano laakiin waxay dhalinyaradiisii ugu maagay ma garanayo dilka markaan ka badbaaday waxaan la xiriiray Axmed Rashiid waxa uu ii sheegay in waxyaabahaasi oo waxba kala socon arinta ayaa waxaa lagu eedeeyay dhalinyaro lagu naanayso super power oo ka howlgala magaalada Nairobi kuwaas oo caan ka ah in dadku si weyn ay u waxyeelayaan inta badan dadka Nairobi ku nool ayaa cabsi joogto ah ka qaba Axmed Rashiid kaasi oo ka taliya magaaladaasi dhalinyaradu waxa ay ku qasban yihiin markay Nairobi ay tagaan gaar ahaan kuwa fanaaniinta ah in ay iskala hadlaan Axmed Rashiid amba ay laaluushaan haddii taasi ay dhici weyso waxaa suurtagal ah in lagu waxyeeleeyo fanaankan Ile ayaa dhawaan BBC-da waxa ay qortay warbixin ay sheegtay fanaankii inuu markiisii hore ka soo bilaabay darbijiif kaas oo si weyn ugu carooday arintaasi Ile ayaa waxa uu sheegay in uusan ka heri doonin dhalinyaradan oo dilkooda uu ka badbaaday sidoo hadalka u dhigay Axmed Rashiid ayuuna si kulul u eedeeyay inkastoo arintu Axmed Rashiid uu iska fogeeyay dadka Nairobi ku nool ayaa cabsi joogto ah daawadayaal kaasi ka qaba iyadoo dowladda iyo sidoo kale booliiska Nairobi ay waxba ka qaba waayeen arrinkiisa waxaana loo adeegsadaa inta badan Soomaalida way u rigaysan yihiin waxa uuna ku hayaa qataata iyo sidoo kale arrimo la yaab leh fanaaniin ka horeysay Ileyare ayaana si joogto ah uga caban jiray Axmed Rashiid waad ku maasan tahay daawashadaada haddii aad nala joogtay min bilow ilaa dhamaad ee ilaawin ina falowna dhaado